arday Soomaaliyeed oo ka qalin jibisay iskuul sare oo ku yaala gobolka Minnesota oo ay maamusho Soomaalida halkaasi ayaa deeq waxbarasho waxa ay ka heleen jaamacadda Harvard oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada waxbarashada sareysa dalkan Mareykanka. wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa warbixintan inoo haya. ومناسبة قلن جبينتا أرضي الصومالية وكبحيسة دوكسيغا سري ستيب أكاديمي وكويا لما قالة سيمبول قبل كمينيسوتا وها دوكسي معمولان ضد صوماليا أرضي ذا قلن جبيني سيئا لبا كميدا هي وحا يديق وحبرشو كهلين جامعة هارفارد وكميدا جامعة وقوت يدا وناكسن دالك مريكنك إسلامار كانوا والد كستو مريكان هي كتامو إني أبد كيسو جامعة سيكا قلن جبيان محمد بشير أحمد وأردقي وقوبون دادا السرية أرددا كقلن جبيني سيدوكسيغا سري ستيب وحانا يسوغو صوبيري فرحادة قلن جبينتا يهليستا جامعة دي وكوريونا يي هارفارد. I still don't know why. It's amazing, it's shocking. والله واحنا كنا من ذكري speechless والله. ها. محمد waxa uu doonayaa inuu barto cilmiga caafimaadka oo dhakhtar noqdo waxa uu guushiisa ku tilmaamay gool ay wada dhaliyeen qoyskiisa dugsiga iyo dhammaanba bulshada Soomaaliyeed. hooyo abo iyo my siblings it was just a community effort waha. Latifa Yusuf Saeed waa qofka labaad ee deeqda waxbarasho ka heshay jaamacadda Harvard waxa ayna guusheeda uga mahadnaqday hooyadeed iyo dugsigeeda. I just want to thank my mom and my school. They helped me a lot. ayaga caawina igu soo dadaaleen. Latifa waxay doonaysaa inay barato sharciga iyo qaanuunka oo ay garyaqaan noqoto si ay gacan ugu fidiso bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota oo ay rumaysan tahay inay u baahan yihiin helitaanka sharci yaqaano Soomaali ah oo xuquuqdooda u dooda. Inshallah dadka maxaa rabaa inuu advocate noqdo and come back to inshallah Minnesota and help dadka Soomaalida oo voice lahayn and who can't represent ayaga is advocate isku noqon karin. maamulaha dugsiga sare Step Academy Dr. Mustafa Ibrahim ayaa bogaadiyay guud ahaan baardadii ka qalin jabisay dugsiga waxa uu VOA u sheegay in qalin jabintoodu sanadkan ay ahayd 100% sidoo kalena waxa uu guul dugsiga u soo hoyatay ku tilmaamay in laba arday oo kamid ah ardaydiisa ay deeq waxbarasho ka helaan jaamacadda Harvard. arrinta iskuul ahaan sharaf bay noo tahay waxay ku tusinaysaa waxbarashada aan meesha ku hayno waxay ku tusinaysaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka shaqaynta wada shaqaynaya ku tusinaysaa waxaan rajayn doonaa ilaahay duulada sanadaha soo socdana in arday badan oo kuwan aan ahayn ay doonaan Ivy League ay aadi doonaan oo jaamacadahaas oo kale ay tagi doonaan marjayna ilaahay duulada. gabi ahaan baardadii ka qalin jabisay dugsigan ayaa laga aqbalay jaamacadaha iyo kulliyadaha kala duwan ee gobolka gaar ahaan jaamacadda University of Minnesota waxaana maamulka dugsigu ardadii ka baxday dugsiga sare isla markaana labadii sano ee la soo dhaafay dhiganayay kulliyadaha kuwoodii ugu buundada sareeyay ku abaal mariyeen nuucii ugu dambeeyay laptopyada MacBook Air talabadaasi ay maamulku ku tilmaameen dhiirigelinta ardayda wali ku jirta dugsiga sare si iyaguna dadaalkooda u sii laban laabaan. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.